السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaal meel walba waa joogtaan iyo si walba aad noo daawanaysaan kuna soo dhawaada barnaamijkii gaarka ahaa oo alaabaan idinku soo gudbi jirnay informationada ama warbixinada ku saabsan Maxamed Soomaali isla markaasina aanu ku soo bandhigi jirnay xisaabaha walaalaha Soomaaliyeed ay ku soo sadaqaystaan dhibane Maxamed Soomaali oo aad ka wada dhagsan tihiin xaaladiisa caafimaad halka ay marayso dabcan waxaa dhinacayga midig fadhisa fanaanada weyn ee aad wada taqaanaan farxiyo kabayare oo Malaysia u timid Maxamed Soomaali inay caawiso waana uga mahad celinaynaa sida walaaltinimada leh oo ay ugu soo dhiiratay kiiska Maxamed Soomaali farxiyo waxa ay kamid ahayd dadkii ugu horeeyay Maxamed Soomaali gacan ka geystay caawinaadiisa waana fanaanadii ugu horeysay oo Maxamed dartiis u soo baxda oo u imaatay Malaysia si ay u garab istaagto waana iskoorkii koowaad oo aan farxiyo u hayno dar ilaahayna waxa waaye ajir badan ayaa u yaala Maxamed iyo aabihiisna mar walba waxaan marxaati ka ahay inay u duceeyaan farxiyo dadka la mid ah sidoo kale waxa dhinacayga bidix fadhiya mataankeyga oo muddo bil ah aan ka wada shaqeynayna kiiska Maxamed ahna aabaha dhalay Maxamed Soomaali waa Axmed Jaylaani Maxamed Nuur oo aad wada taqaanaan dabcan maanta waxaan rabaa hadduu alla idmo in aan aniga iyo farxiyaba idinla wadaagno dareenkeena ku aadan Maxamed Soomaali isla markaasina aan idin soo bandhigno xogta ugu dambaysa ee aniga iyo farxiyana qusaysa dabcan intaan idin soo gudbin lacagihii muddooyinkii dambe aynu haynay iyo waxyaabaha macna marxaladda Maxamed hadba sida ay noqonaysay waxaan rabaa inaan farxiyo ku soo dhaweeyo barnaamijka isla markaasina aan weydiiyo dareenkeeda ku aadan imaatinka iyo markii ay timid waxa ay ku aragtay Maxamed Soomaali iyo dadka Soomaaliyeed waxay u sheegi lahayd hay farxiyo thank you Abu Wazari alxamdulillaah rabbil caalamiin horta aniga aad aan faraxsanahay balan ayaa jirtay aan qaaday inaan ma aragtay Maxamed Soomaali soo arki doono oo indhaha ka soo qaadi doono ilaahay mahadiis waaye ilaahay waa ii suurta galiyay inaan imaado Malaysia Maxamedna aan arko sida aad ogtahayna airportka markaan ka soo dagay guri ma tagin hotelkana ma tagin ilaa aan Maxamed arko alxamdulillaah Maxamed waan ku farxay sidoo uu eeg yahay Maxamed wuu socdaa oo fiisita tarabiya u socda oo socodka ayaa la baraa ma sha Allah wixii faahfaahin oo kalena waa idin wada sheegi doonaa laakiin aniga aad ayaan u faraxsanahay inaan Maxamed Jaylaani ninka la yiraahdo Axmed Jaylaani Nuur aan la joogo Maxamed yar aabihiis iyo Abu Wazari oo qayb weyn ka qaatay halkan ayaan idinkaga mahad celin doonaa halkan ayaan idinku clear garayn doonaa wixii hagaaga iyo wixii noo dhiman insha Allah marka aniga Abu dareenkayga lama soo koobi karo alxamdulillaah aad aan u faraxsanahay Soomaali oo dhan insha Allah si wada jiraan ugu mahad celin doonaa thank you waa tahay farxiyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aad macnaa kiiska Maxamed Soomaali min bilow ilaa dhamaad aad ugu jirto ilaahayna ajir ha ka siiyo dabcan waxaa dhinacayga bidix fadhiya Aaba Axmed Jaylaani oo ah aabaha dhalay dhibane Maxamed Axmed Jaylaani oo aad xaaladiisa wada ogtihiin ka waran Axmed dareenkaaga ku aadan farxiyo imaatinkeeda iyadoo ah gabar Soomaaliyeed fanaanad Soomaaliyeed oo u istaagtay in adiga wiilkiina idin samato bixiso Malaysia in ku soo booqatay bal dareenkaaga iyo sidaad u aragtay farxiyo inuu garab taaganta ما شاء الله ولا شيء فرحيو آد يا ديان وفرحي ما شذا يو قابك إنه سو قرب استاجتي ومدان ويلجينا إلهي بدون أن يويلكي محمد ولا شيء وحنا لا يرتمر والب إلهي كافرحيو إلهي إنه أكون نوريو جزاك الله مر والب المحاد يعني حتى يقف الدنيا ومد أنا كلجينا أنا هن تتبدل هو يعني هو أو وسوق عادي أو قيل سي يوحي مادي وقدالك إمادي مرك ولا شيء فرحيو وحنا لا جزاك الله خير أبايو إلهي أدين أجري حسنات الله كاسيو إلهي هذين واحد ما ارتماد مراد والبال هذا إله كو سقيرو مر والبنو كو سو دعينا انتي ولا الصومالي او سو قيب قادتي محمد عاونا ديسا ايغان waxaan leenahay جزاك الله خير walaalkii azaarig kadalik asin sidoo kale uu ku jira hadin waxaan la ilaahay ku nuuriyo ilaahayna ka farxiyo insha Allah waa tahay aad u mahadsan tahay Allah uu aqbalo ducada walaasheen farxiyo kabayare iyo walaalaha Soomaaliyeed oo aniguna qayb aan ka ahay ducadaada Allah uu aqbalo waana kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan aad ugu duceysay daawadayaal sidaad ka war haysaan waxaan xisaab xirkii ugu dambeeyay aan sameynay aan ku soo bandhignay xaaladda Maxamed sida ay tahay inuu fiican yahay isbitaalka laga soo saaray qalinkii kuwaad lagu guuleystay maqaarkiisa uu fiican yahay haddana uu guriga uu ku sugan yahay fiisatarabi loo sameeyay muddo bila lagu guda jiri doono fiisatarabigaas kadibna bisa soo socota ee saddexaad ee sanadkan dib isbitaalku ugu laaban doono lafta la jabin doono kadib la kabi doono xaaladiisu inay sidaas tahay waad la socoteen waana ka dharagsantihiin halka dhinaca kale lacagii aad soo dirteen ay macnaa aan kugu sheegnay in ay macnaa lacag $10,000 baxday 25,000 soo hartay total lacagta guud ahaan ay ahayd $35,000
10,000 oo doolar isbitaalka u qaatay 25,000 oo doolarna aaba axmed jeelaani jeebkiisa ay ku jirto waa sidaan hore kugu soo bandhignay marka ringid u bedelna lacagtaasna waxay noqotay 145,000 oo ringid oo lacagta wadankaana 40,000 oo ringid waxaa qaatay isbitaalka 105,000na maxamed aaba axmed jeelaan akoonkiisa ku jirtaa inkastoo lacaga 6,000 dib ay ka soo baxeen laakiin barnaamijka aan nala ogeedeen halkaas ayuu marayay maantay waxaan rabnaa mar labaad aniga iyo farxiyo iyo aaba axmed jeelaani oo isla joogna inaan xisaab xir kale sameyno siiba farxiyana ay markhaati ka noqoto aaba axmed jeelaanina uu ogaado anigina aan ogahay lacagaha la hayo oo aad macnaa nala qiraysaan oo aad nala xisaabin doontaan waa 25,000 oo hore oo akoonka ku jirtay iyo 5,000 oo gadaal ka timid guud ahaan lacagta marka la isku daro ee aaba axmed jeelaani oo gacanta ku haysto qaliinkii koowaad kadib waa lacag 30,000 oo doolar ah axmed jeelaani lacagtaas akoonka ma ku jirtaa si fiican lacagtaas waa haystaa lacagta hadda zaari uu sheegayo waa 30,000 oo doolar waana lacag hadda aan u dabaaldegayo insha allah qaliinka oo maaragtay maxamed uu dhimayahay yacni maaragtay inuu ku bixi doonto iyo baxnaanidiisa iyo fiistarbiyadiisa kulleed waxa waaye inta dhimanna allah noo dhammaystiro kulleed lacagtaas hadda waa faraha way ugu jirtaa haye farxi adigana lacagtaas ka waran macnaa inta la eg tahay waxaad ka og tahay dabcan waxaan ugu talagalnay video inaad nala ogaato bal adigana markhaati ayaan ka ahay waxaan videogan u duubayna horta muhiimadda ugu weyn u duubayna waxaa waaye inaan ummadda Soomaaliyeed aan u sheegno inaan ma aragtay u mahad celinayno lacagta maxamed yare ay ku soo sadaqaysteenna qaliinkii koobaad ka bacdi lacagta total hadda la haayo marka la isku daray waa 30,000 ayuu hadda axmed jeelaani haystaa maxamed yare horta waa mahadsantihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed intii kacdoonkan ka qayb qaadatay intii maxamed yare u istaagtay maxamed yare qaliinkiisi waa kii koobaad ayaa la mooday kii labaad haray الحمد لله رب العالمين وحال يري إيشك إن مركز أدوق إسو يابتبا كان كاهو سيا لفيريا ما أنت ضد محمد يرى كلي تأياتيره مركا إن الحمد لله حالدي اسمال في عني مريسا أنا يقول في كفرحية أهان إن وحن لا هي كان كعدينا يا محمد يرى ما أنت وجودن بيس أسوق أردا يبنون عيارايو إلا أن كأركو قرب كيسان تاجنها أحمد شيلاني وأنا عاونا يا هذا من ليس ينقص جانا هاي وحن كعاون كرو أو كران كي وأود ده أنا وانكو عاونا يا waxaan u sheegayaa axmed jaylaani ilaahay lacagta aad haysaa kuu barakeeyo meeshaan waa meel iska qaali ah waa meel nolosheedu aad u adag tahay waa meel tallaabada aad qaado wax aan caqligaaga galayn ay ku baxayso marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed dhamaantiin axmed Soomaali lagagama turjumaayo waa dadka shalay ku soo caawiyay markastana garabkaaga taagan waxaan ku faraxsanahay maadaama caawinta ugu horreysay oo maxamed yare xoogay mugdi galay oo tashwiish badan jiray in tashwiishka meesha ka baxay oo maanta dad walaal ah oo azaari uu kamid yahay oo anigu aan kamid ahay oo ummad Soomaaliyeed oo dhan ay kamid tahay Malaysia dad jooga kamid yihiin in ilaahay noo fududeeyay كعدونك اللبادو محمد الله كعي أو وح قلدا يوح تشويش يوح لونسي هاي إنسان كصوبحين الحمد لله العاجي هنا أي أبوه عن تيسو كتيران أحمد شيلاني مركب وحن إذا قعد سنة إنه وندي شيء جينا وأنا نقول إذا قعد سنة يا صفرحية كبيرة أهم مح أحمد شيلاني لعكتي سلاها أبركايو قلين كلا بديلاها أفضودايو وحي كسو كردا أو كلسو كردا أو أما حق قرشة هاتو أما الصومالي وين عيد كاي حكتا ملهن وصو هاد لي كرتا أضاء إسو دوبي كرا وأنا لسه سعودين كرتا وحواي وحن ربنا نقول له إلهي ما أركتها إذن بركة إيمان كان الله نقول سجود دمانتين هل كسر نقول بحياة أبو أزاري يذكر يجنايا وأسقون أسقى جارهان أسقى هذا إن شاء الله وحي برنامجك يسدوا نقود دوره يهلك ما أركتي أي قوة ما أركتي وضان إن شاء الله هذا ما سنت أبا فرحيه وكاجم هاد علنا الناس إذا وناكسن مرول بأقرب تاجنتها ولا لها الصومالي إذا دبان طبعا داوديال سيداد أكتهين أن محمد كيس مدة أيام كسر جد جرني طبعا أنا جون وحنا قفك أقابل سنة إن عن دين صوبان دقو حقيقة جرته ستة زبالة انت الله هلا إسلام مركز سنة لعجيه إن أبو أحمد جيلاني قعنتي سكجرته إن عن دين صوبان دقو أيه هو شيء ده هيد ولا لها الصومالي سوعوي هذا يومها سنين مرول با انت عن كهل الوجود كي وحن بلن قادا أبو أحمد جيلاني محمد صومالي inay mar walba yihiin midig iyo bidix labada gacmood oo ay la mid yihiin inaan mar walba garab taaganahay inaan caawin doono in wax walba ay u baahan yihiin aan diyaar u ahay nafteedana aan u horay laakiin Abu Ahmed Jeelaan waxaan ka codsaday
farxiyana ay la og tahay oo aan dhammaantiin anagoo isla joogna aaba axmed jeylaan aan ka codsaday in maadaama muddo bilah howshan aan kusoo guda jiray garabna istaagsanahay aaba axmed jeylaani haddana wiilkii laga soo saaray isbitaalka gurigana uu ku sugan yahay uusan u baahnayn turjumaan oo aysan macnaa qarashaadkiina weli ay socdaan laakiin sidii la rabay weli aysan ahayn oo xoogaa macnaa dadkii ay macnaa waa iska ogtihiin soomaaliya layahay laakiin culeys badan hadda uusan jirin oo dhinaca qarashaadka ah waxaan aaba axmed jeylaani ka codsaday in maadaama shaksi aan ahay howlo badanna ay sugayaan in xoogaa break aan qaato in la ifasaxo in macnaa aan danihii shaksiyana ee aan ka gaabiyey anoo weli macnaa taladeyda iyo xooggeyga la garab taaganahay in aan qabsado dabcan ilaahay mahadiis aab axmed jeylaani waa iga ogolaaday adinkana waxaan ka codsanaa daawadayaal maadaama aad tihiin dad walaalihii ah inaad iga ogolaataan oo aan waqtigaas la ifasaxo laakiin mar walba waa axmed jeylaani ii baahdo inaan garab taaganahay caawin doono tale iyo aqli mar labaad hortiina aaba axmed jeylaani waa ka codsanaa inuu ifasaxo inaad ii ducaysaan in mar walba aan macnaa dee aan garab taaganahay qof walba oo walaala oo dhiban waxaan diyaar u ahay meel walbuu joogo inaan garab istaago inaan caawiyo in macnaa dee aan u caawiyo si dadka kale ay ogyihiin soomaaliya layahay aaminku waa iska lumay laakiin waxaa muhiim ah in wax walba ay noqdaan transparenty in qof walba oo walaala oo maxamed soomaali wax kusoo sadaqaysanayana waxaan ka codsanayaa gacanta wax sadaqaysanayso iyo gacanta lagu sadaqaysanayo wixii u dhexeeya waa qalad in aabbaha wixii qofkii wax tari lahaa inuu wax taro inuu usoo diro inuu aamino haddii axmed jeylaani aamino weysaan qof aaminaysaan ma lahan marka waxaan ka codsanaa walaalayaal sidaa u caawinaysiin inaad hore ugu sii wadaan inaad sii caawisaan inaad garab istaagtaan aaba axmed jeylaani waxaa ka codsanaa mar kale hortiina inuu igu fasaxo barnaamijkii bisha aan soo wadayna waxaan jecelahay ka ashari ahaan ka axmed abuukar ashari ahaan inaan intaas ku ekeeyo maanta aaba axmed jeylaani aan ka codsado inuu ifasaxo haya axmed jazaaka allah walaalkayga ashari kheyr allah ku siiyo maxaa yeelay muddo badan aan soo daba taagneed codsigaad ii soo dhiibatan yani waa mid yani la qaad horta waxaan leeyahay awalan aniga wiilkay waa kuu duceynay ilaahay maaragtay in ajri xasanaad allah kaa siiyo ilaahay maaragtay waxaad filin gacmaha la soo geliyo runtii waa dareemi karaa qof walba yani howshiisa ama barnaamijka ku xiran marka taas waa mid niyadeena saafika ah yani inaan ku fasaxno adina barnaamijkaaga dhamaystid باذن الله ان شاء الله كليد وان اسلي جوجنا ماليزيا وحي قدالان كاغا باهنون in maartay inaan ku soo wargelino marka insha Allah walaalay Soomaaliyiin waxaan u sheegayaa walaalkayga codsigiisa yani inaan ka qaabilay kheyr Allah siiyo anaana fasaxay inkastoo magaalada aan isla joogno marka insha Allah mar walba kor unaga ogaan doona hadduu wal idmo jazaakallahu kheyr waa tahay maadaama farxiyana ay tahay representative-ka Soomaalida dadka Soomaalida walaalaha ee Maxamed soo caawiyay ay ayaduna maanta matalayso fanaanad qaran ay tahay walaasheen barnaamijkan gaalin weyn ka qaadatan ay tahay iyaduna dareenkeeda ku aadan inay fasaxaan Soomaalida ayaduna qaas ahaan maadaama barnaamijkan iskula jirnay ay si gooni ah fasaxdo hay'ad farxiyo horta azaariyo waa mahadsan tahay anigu meel fogaan ka imid meel aad iyo aad u fogaan ka imid waana noqonayaa maanta laakiin Malaysia adiga la jooga Axmed Jeylaani iyo cunugiisaba waana la ogyahay qof walba dana ku xiriirta nolol baa la burinaya qof walba hawlu leeyahay laakiin waqtiga aad la soo qaadatay iyo caawinta aad ka geysatay cunugaas yar ilaahay ajirkaas iyo abu waqti dheer u ahaa bil dhanay ahayd waa ku fasaxaynaa barakshar badan ma jiro haddii lacag lagu soo sadaqaysto Axmed Jeylaani laba joor ahaanba marka hore magaciisa lagu soo qorayay Axmed hadda waa kala yaqaanaan u malaynaa magaalada iyo xawlaadaha asaga doonanaya wixii soo saa'ido oo ku soo kordho insha Allah waa isla wada joognaa adiguna waa ka warhaynaysaa guud ahaan magaalada inaad ma aragtay ku ogaatid ilaahay kula garab gal abow ilaahay cunugaaga caafimaadkiisa ma aragtay taama kaaga dhigo ilaahay hawsha dhiman ku dhamaystiro insha Allah saasaa noo balan waa iska warhaynaynaa waxna ha ka walwalin walwal waxa waaye kii hore waaye walwal waa dhamaada u malaynaa Axmed hadda yaa marka alxamdulillah insha Allah waa idin soo salaamayna dhamaan umada Soomaaliyeed inta gacan ka geysatay waxaan idin leeyahay thank you so much inta samaha jecel inta xanuunsan ee Soomaaliya ku dhibaataysan ee dadkeena aan u soo duceeyno mar walbana kulay gacmooda jiray wax ku gooyaan shalay Axmed Jeylaani cunugiisu meeshay taagnaayeen waa ogeydeen maantana waa alxamdulillah rabbil caalamiin hawshii aan qabanay waa u jeedaan wax tarkeedii ma sha Allah marka aan iska warhayno balanteena waa inaan caawinaa insha Allah dadkeena danyarta ah thank you so much guys aad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan qodob kale ku darsado maadaama anagu Soomaali aan nahnay aaba axmed jeylaani ila joogaa fursaddan aan ka faa'iideysto muddan soo caawinayay waxa dadkuna macnaa waa iska dareemi kartiin in aaba axmed jeylaani muddadii aan joogay aanan $1 ka qaadan oo aan xooggeeyo ku sadaqaystay
oo uusan anigu barnaamijkaas sadaqo qof walbo lacag soo baxsanayo sidoo lacagta ugu sadaqaystina xoogii ugu sadaqaystay waxaa rabaa Aaba Axmed Jeylaani afkiisina ka dhageysataan maasha allah horta walaalkayga asaari codkiisa maaragtay iyo xoogiisa ugu sadaqaystay ilaahay ajri xasanaad allah ka siiyo ma ahayn mid uu shaqeynayo maxay oo joornaati ah ama lacag ahaan ah waa nin damiir Soomaalnimo qaaday oo uu go'aan oo gaaray in maaragtay codkiisa nagu caawiyo xoogiisa walaalkay mar walba waxaan leeyahay ilaahay maaragtay sidaad noo farxisay si ka daran allah kaaga farxiyo insha allah azaari ducada maxamed iyo ducadeen way ku soo bixi doontaa intii ummad Soomaali aan u duceynayo insha allah ilaahay khayr allah siiyo إن شاء الله هذا ما سنتهاي إلهي كل قرب قلنا نلشة نبقى بدن الله إنكم كل هذه ويل كهجة سيدو كلا باي فرحينا وسلامي كستا إن شاء الله هذا ما سنتهاي داوديال هذا ما سنتين ولا لها صوماليات قعنت كجست أف يأذن العقبة أنتوا محمد صاعوي سيد ضمير كجران وقوم هاد علنا دمانتين وما سنتين مرول بمحمد صاعوية وويل ولكن وويل أدشانو كلا وويل صوماليات وعاونات دينو باهن فضلا وحول بود أودان كسو صدقيستا مهم ما هنا أنا قرب تاجنادو مهم ما هنا فرحية قرب تاجناتو أبا أحمد جيلاني ويلكيس ويدبيهين وحين كعصنا مروا بنا صوع عاوسان وحنا إن كبقيلن وأن ما سنتين سيدا قرب كأوسو سيسان إن الله ما أنت كجران إن معنا إتان الله فرحة لأدا يدوق ما سنتين داود يال برنامج كي جار كها وحساب حركة عن قط تلقلنا ويقلق يبقى عين فأنا ندق فرحية كبيرة يا أبا أحمد جيلاني أنت سينو كسو جبين إننا أنت إنه برنامج كانوا كلا دبها وضو كل مدوننا ودمانتين وإسكت دوبان وإذا كجت جينا سيدا إنه بتقليو